haddaad jeceshahay muuqaalada qisooyinka kala duwan fadlan channelka subscribe dheh si aad u noqotid qofka koowaad ee la socda muuqaaladeena aadaan u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhegeystaha ama daawadaha quruxda badan oo kusoo dhawow qiso kaloo cusub. Fawziya iyo saygeeda waxay ku noolaayeen dalka Algeria, waxayna u dhasheen Algeria iyagoo ku noolaa nolol midii ugu quruxda badneyd ilaa markii dambe laga helay Fawziya xanuunka kansarka. maalinkii Fawziya xanuunkaas laga helay wixii ka dambeeyay noloshii gebi ahaanba way isbedeshay. Fawziya ninkeeda halkuu garab istaagi lahaa xaaskiisa carruh ayuu kala duldhacay, wuxuuna si naxariis daro ah u dhahay u tag aabaha ha ku daweystay, anigana nolosheyda ayaan iska sii wadanayaaye. Gabadhii waxay dareentay cidlo iyo quus, balse mugdigii ay ku jirtay waxaa uga soo dhexbaxay iftiin, waxaana garabkeeda istaagay walaalkeed Xuseen. Xuseen waa ninka aad sawirka ka arkaysaan, waana geesi qalbi dahab ah leh. Xuseen waa beeraley, xoolahan uu dhaqdaa, wuxuuna ku nool yahay iibinta caanaha ariga. Inkastoo uu yahay nin danyar ah, haddana deeqsinimadiisa waxay la mid tahay tan maalqabeennada qaar. Wuxuu naftiisa iyo waqtigiisaba u huray walaashii, isaga ayaa quudiya, daryeela oo bixiya qarashka daweynteeda, isagoo aan ka daalaynin u adeegideeda. Sanado badan oo daaweyn ah, Xuseen wuxuu walaashii u ahaa sida hooskeeda, isagoo isla markaana u noqday garab iyo gaashaan ay ku tiirsato xilliyada ay dhibaatadu ku jirto. Waa kan tusaalaha dhabta ah ee walaalka sanadka. Marka ay dunida dhabarka kuu jeediso, walaalka wanaagsan waa qofka keliya aad ka heli karto naxariis aan dhammaad lahayn. Haddaba qaybta facalooyinka ugu duceey walaalka ama walaasha, laga yaabaa in ducadaas loo aqbalo.